Codsi badan ayaa iga soo gaaray sida loo sameeyo muuqaalada motion graphics-ka iyo muuqaalada 3D-ga. Way fududahay inaad sameyso muuqaalo noocan ah adigoo isticmaalaya CapCut iyo taleefankaaga. Waxaa jira muuqaalo kale oo taxane aan kaga hadlayay muuqaalada noocan ah sida loo sameeyo. 80% kor ayay u kici doontaa xirfadaada video editing-ka haddii aad daawato muuqaaladaas si taxanaana aad u xirnaato channel-kan. Waxaan soo wadaa tutorial badan oo muuqaaladaas ah. Si aad u practice garayso dhammaan waxyaabahan aan isticmaalayo, waxaan soo dhigay Telegram channel-kayga, linkigiisa description-ka ayuu yaalaa, halkaas kala soo deg. Marka hore soo furo CapCut, kadib waxaad soo qaadanaysaa background. Background-ka marka aad soo qaadato, size-kiisa waxaad geynaysaa 10 second ilaa 6 second mid aad rabto geey. Kadib waxaad soo qaadanaysaa sawirkan. Sawirka markaad soo qaadato waxaad tagaysaa qaybta unta remove background, kadib qaybtan ka sii dooro. Markaad ka tirtirto background-ka, sawirka xoogaa zoom ku soo sameey, kadib waxaad dhigaysaa halkan. Kadib qaybta wareyso keyframe ku qabo, keyframe kood iskaga tag. Keyframe labaad ku qabo, keyframe kood xoogaa ka fogow. Markii keyframe-kii labaad u soo laabo, kadib sawirka waxaad gelinaysaa hoos geli. Kadib waxaad tagaysaa qaybtan qoran tahay graph, kadib waxaad ku daraysaa graph-kan. Labadii keyframe aad horey ugu soo qabatay ka soo fogow. Halkan keyframe kale ku qabo, isagana xoogaa ka fogow. Halkan keyframe kale ku qabo. Marka adigoo jooga keyframe-kan dul jooga, sawirka xoogaa gadaal celi. Kadib waxaad tagaysaa qaybta graph-kan ku dar. Tig soo saar ka soo laabo, waxaad tagaysaa add overlay, kadib soo qaado icon-kan. Marka si aan u tirtirno background-kan uu dhinacyada ka leeyahay, waxaad tagaysaa qaybta remove background, kadib chroma key ka sii daro background-ka soo tirtir. Background-ka marka aad soo tirtirto, sawirka xoogaa yaray, kadib waxaad dhigaysaa halkan dhig. Marka intaad sameyso, waxaad soo qaadanaysaa sawirkii labaad, isagana waxaad ku sameynaysaa isla process-kan. Kadib labadii sawir aan had ku soo darsanay, qaybta horeyso keyframe ku qabo, xoogaa ka fogow, keyframe labaad ku qabo. Markii keyframe koowaad u soo laabo, waxaad raadinaysaa qaybtan qoran tahay opacity, kadib waxaad keenaysaa tira 0 gee dhammaantood. Waxaan rabnaa sawirkan kale marka uu gadaal u laabto oo position-kiisa tago, iyagana inay ka soo muuqdaan gacmihiisa. Marka intaad sameyso kadib cabirkooda leekeysii background-ka. Mar kale waxaad tagaysaa add overlay, kadib waxaad soo qaadanaysaa sawirkan. Qaybta remove background tag, kadib background-ka madow dhinacyada oo kaliya ka soo tartin. Waxaad tagaysaa qaybtan qoran tahay transform, kadib afkiisa dhinacan kale ku aadi. Marka intaad sameyso, qaybta horeyso keyframe ku qabo, xoogaa ka soo fogow, keyframe labaad ku qabo. Markii keyframe-kii koowaad aad ku soo qabtay u soo laabo, kadib sawirka zoom ku soo sameey. Qaabkan aan u sameynaa ku sameey. Kadib qaybta graph tag waxaad ku daraysaa graph-kan. Marka sawirkan gadaal aan kaga soo darnay, waxaa la rabaa inuu soo baxo. Marka sawirkii hore aan ku soo darsanayn uu booskiisa istaago, labadii icon gacmaha aan ka saarayneen ay soo muuqdaan. Kadib ayaa la rabaa sawirkan inuu soo baxo. Marka cabirkiisa iska sax position-ka aad dhigaysona iska hubi. Marka waxaa la rabaa sawirkii aan gadaal kaga soo darsanay marka uu soo baxo, icon-nadan gadaal noo yaala inay shucaa ku furmaan. Marka si aan taas u sameyno, waxaad tagaysaa halkan, kadib keyframe ku qabo, saddexda sawir, keyframe koowaad ka fogow, keyframe labaad ku qabo, keyframe koowaad ma keyframe-ka labaad tag, kadib opacity-gooda waxaad geynaysaa 10 gee, saddexdooda qaabkaas ku sameey.
kadib waxaad tagaysaa qaybta tagis. Halkan waxaad qoranaysaa wax alaale wixii aad u baahan tahay aad xaaladaas aad ka hadlaysid. Marka haddaani waxaan ku qoranayaa ereygan. Kadib waxaad tagaysaa qaybta fonts alaale midkay kula qurux badnaa soo saaro. kadib waxaad tagaysaa qaybta animation alaale midkay kula qurux badnaada soo saaro. marka qaybta adi dooqaa ka ciyaar, balse video qaybta ugu muhiimsanaa waa qaybta aan ku fahansiinay. kadib waxaad tagaysaa qaybta soundska, waxaad ku daraysaa sound effect. icon walba marka uu soo baxayo waxaad ku aadinaysaa sound effectigiisa. sound effectyadan waxaad ka heli kartaa Telegram channelkayga, halkaas ayaan kusoo boosti gareeyay. linkigiisana waxaan soo dhigay descriptionka muuqaalkan, halkaas kala soo deg. kadib markaad muuqaalka aad ku darto sound effectyada waxaad arki doontaa muuqaal qurux badan oo aad samaysay oo 3D ah. marka haddii aad halkan ila soo gaartay oo aad weli nagu soo birin, fadlan nagu soo bir. haddii aad horey noola joogteen muuqaalka like gareey.